hogaamiyaasha dhaqanka waxgaradka culimadiinka iyo dadweynaha u tiro badan oo ka soo jeeda deegaanka Aroori ee ku yaala galbeedka magaalada Burco ayaa habeenkii xalay ashir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco si aad uga soo horjeestay xiritaan lagu sameeyo seeraha ku yaala deegaanka Aroori isla mar ahaantaana waxay ku sababeeyeen in ay dhul daaqsin ay degan yihiin 8 kun oo reer oo xoolo dhaqata isla markaana aanay suuragal ahayn in shakhsi loo xidho seeraha ku yaala deegaanka Aroori sidoo kalena xukuumadda dhexe Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay hoos soo eegaan maya haddii aan laga rabin mashaqo halkan waxaan ku fadhinaa uqaashii oday dhaqameedkii hayrmaanadii iyo dad fara badan oo dhalinyaro iyo haweena inta kamera dul heegina in dambaad jirta oo naga dambaysa waxaanu leenahay ceel xume ilaa Sanyare beeri halka degayay way ku dhan yihiin halkan haddii la wada xidhaayo galbeedu ka imanayo ama bari ka imanayo oo nagala hadlaayo dadku ay madaxdu nagala hadlayso sababta waxaan dhalinaya wada hadal waxaan isku dhaxsiin karnaa Aroorina xarig laguma soo qaadi karaba way furan tahay waxaanu ku diidnay wax tala ah iyadoo aan laga weydiin geel baa noo daaqa ari baa noo daaqa loo baa noo daaqda deegaan kaleba malihin meel kale oo bannaan oo imika 800 kun oo qoys loo rarayana ma jirto dadka deegaanka ama gobolka reer Togdheer dhammaantood waxay ka hadlayaan seeraha ilaa iyo inta uu gaari karo deegaanka reer Soomaaliland dadkii joogay markii la yiri Aroori qalab baa loo sitaa cid baa loo xidhayaa nin kasta halkuu joogay wuu ka soo cararay waxaanu leenahay nabadgelyadu yay inaga fakanin awooyaaliyay ma nabadgelyadu inaga fakanin maaha meel dawladi leedahay dawladdu Soomaaliland kuma xisaabtami karto meel dawladeed bay hayd meel Soomaaliland laga dhacay bay oo deegaanka laga dhacay oo deegaanka galbeed laga dhacay iyada oo aan waxba laga weydiin gaalkii ka yimi dhulka dabadiisana uu la weydiin jiray warsadii qurahayd wankii qoorta madoobaa aynu diraynay halkii uu ku dhalanayay marka waxaanu leenahay haddii la xanaanayn waayo warsada Soomaaliland oo xoolaha ama shacabka waxa iman doona qasab awgeed dadku waxay ka qaylinayaan oo aanay doonin oo ay ka hor taagan yihiin oo ay madluun ka yihiin oo rebashkoodu imaka uu ka soconayo week iyo bad ayda goodiga Aroori laga daaqo oo laga maamulo dhan waxa ka soconayay in la xidho meesha Aroori oo heer garoon laga xidho oo dawlad loo xidho oo qof shakhsi ah loo xidho oo iyaga xoolaha loo xidho dadku ageenis bay ka yihiin waa ka soo horjeedaan dawladdu markaa hadday tahay suldaan oo cadaalad baa soo ku cabays hadday cadaalad tahayna dadka ha loo eego cabashadiisa sida ay tahay dadkuna waxay leeyihiin guuri meeyne geeri baanu ka xignaa